habeen hore taa qabsaday waa xirxiray wiiga ku xiri ku dil wiiga ku kulanti waan daawadayaasha sharafta leh ee ku xiran janaalkan Shabeellaha TV ku soo dhawaada mar kale iyo muuqaal cusub. muuqaalkan waxaan kaga hadli doonaa aabe wiilkiisa dilay kadibna ku tuuray wabiga. haddaba halkee ayay ka dhacday dhacdadan murugada iyo argagaxa leh? inta aan ku bilaabin warbixintan oo faahfaahsan, haddii ay tahay booqashadii ugu horeysay ee aad ku timaado janaalkan Shabeellaha TV, waxaan si xushmad leh kaaga codsanayaa inaad janaalka subscribe aad saarato furatana gambaleelka si ay ku soo gaaraan barnaamijyada xiisaha leh ee aan halkan ku soo baahiyo. ciidanka booliska saldhigga Jowhar ayaa maanta soo bandhigay aabe habeen ka hor wiilkiisa ku dilay gudaha magaaladaasi, waxaana warbaahinta la hadlay aabaha wiilkaas dilay isagoo ka warbixiyay qaabka uu dilka u geystay iyo waxa ku qasbay in uu dilo wiilka uu isaga dhalay. maxamed daayow aadan oo ah aabaha wiilkiisa dilay ayaa sheegay in wiilkiisa uu ku noqday caasi waalideen, sidaa darteedna uu u go'aansaday in uu dilo, waxaana intaas uu ku daray in dhowr jeer uu dhibaato u geystay dadka deriska ah, isagoo sheegay in dhaqan xumo iyo sidoo kale isticmaalka maandooriyaha uu maaro ugu waayay, sidaa darteedna uu u dilay kadibna uu meedkiisa wabiga ku riday. laga soo qabtay wiil aniga dhala oo cabtay noqdo halaysa oo beeraha aniga naftayda qalqil giri xoolaheedina laay 9 saacaad oo sacir ma yahay iga qashay muslimka diriska ahayna xoolihiisa laay sidii markasta wax uu guday daalay qarashkeedii wax dheefkeedina ku dhammeey kale hadii dhaana kale xawaay oo cabtay oo qolada xashiishka cabtay noqday oo faanol xaafadda faanol waa taqaanahay xaafadda faanol iyo bayaxaw labada meel bayaxaw faanol igidiyaan bas saddexda meel ka dalan doon jiray saddexda meel ka dalan doonay anjax 4 bilood iyo 20 aw ninkaas walaalkay oo anjaxa u keenay ninkaana maar u laahda 4 bilood iyo 20 aw ahay waa October-kii la soo day ku yimid waa la soo day meeshiisa ka bilowday hadana adiga ku dhaafi ma hayehe xoolo dhaafi ma xoolaheed waa layba tolki kala dhaafi ma abaal dhaafi ma waxa dhaafay xoolo nool dhaafi ma ri saarsan inta la keenay anjaxa suuq xoolo lagu soo qabtay inta la keenay muslimkii oo dhan ayla hore lugta marsi iyo macal xoolaheed 20 jir waa nin garabka ku qaada waa anjaxa ayaa nimankan ay yaqaan كلا نكتع فالكاس أنا مركب فالكاس حمين هو عطاق بصدي واحد حري ويا كحري أقدر ويا كتر. marxuumka dhintay ayaa lagu magacaabi jiray xasan maxamed daayow, waxaana da'diisu ay ahayd 20 sano. aabaha dilay wiilkiisa ayaa markii uu falka geystay waxa uu isku dayay in uu baxsado, balse waxa gacanta ku soo dhigay ciidanka booliska degmada Jowhar, waxaana sida la sheegay uu isku dayay inuu ku dhuumaalaysto beer ku yaala banaanka magaaladaasi. taliska saldhigga Jowhar ayaa sheegay in maxkamadda ay u gudbin doonaan aabaha dilka geystay, waxaana taliyaha saldhigga uu sheegay in ay gacanta ku hay doonaan tan iyo intii sharciga laga soo hor istaajin doono. waad ku maasantahay daawashada aad daawato muuqaalkan daawade. haddii ay tahay booqashada ugu horeysay ee aad ku timaado janaalkan, fadlan subscribe saaro furana gambaleelka si ay ku soo gaaraan barnaamijyada warbixinada iyo wararka degdega ah ee aan halkan ku soo baahiyo. mahadsanid.